ay ahayn markii ugu horeysay xukuumadda Soomaaliland weerar ku soo qaado suxufiyiin ka cabanaya dhibaato loo geystay ayaana haddana noqonaysa mid ka mid ah caburinta iyo cagajugleynta lagu maquuniyo warfidiyanada madaxa bannaan ee dalka ka howlgala. subaxnimadii hore saaka ay ahayd markii ciidamada RRU-du uu hogaaminayay taliye ku-xigeenka ciidamada bilayska Soomaaliland Cabdiraxmaan Liibaan Fooxle ay jirdil u geysteen suxufiyiin halka ay qaar kalena xabsiyada u taxaabeen. wariyaashan ay maanta ciidamada sida gaarka u tababaran ee la kowsaday xukuumadda dalka waqtigan ka talisa tacadiyada u geysteen ayaa ahaa kuwa ka cabanayay nin weerar hore ugu qaaday xarunta wargeyska Hubaal oo si sharci darro ah loo sii daayay. wariyaashan oo ay horkacayeen xogayaha guud ee ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Soldier Mudane Maxamed Rashiid Sheekh Xasan Maxamed iyo qaar ka mid ah shakhsiyaadka u ololeeya xuquuqda aadanaha ayaa markii ay socod ka soo bilaabeen Hotel Imperial waxay la kulmeen ciidamada RRU-da oo loo sii diyaariyay si ay uga hortagaan cabashada suxufiyiintan waxayna markiiba ku bilaabeen jirdil wariyaashii halka qaar kalena ay xabsiyada dhigeen intii ka badbaadayna ay ka carareen goobta weerarka loogu geystay. wariyaasha xabsiga loo taxaabay ayaa kala ahaa 4 wariye oo lagu kala magacaabo Saciid Qadar Cabdullaahi oo ahaa madaxa wararka Bulsha TV, Xasan Maaldidar oo isna ah wariye ka tirsan telefishinka Universal, Cabdisalaan Cabdirashiid oo ka mid ah howlwadeenada Bulsha TV iyo tafatirihii guud ee shabakada wararka Xogreeb News Cabdi Casiis. wariyaashan ayaa ugu dambeyn lagu xidhay xarunta saldhigga dhexe ee Hargeysa waxaana falkaasi cambaareeyay ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Soldier oo uu helinayay agaasimaha guud ee telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV Mudane Cabdirashiid Nuur Wacays waxaana hadaladoodii ka mid ahaa maanta horta waxaan qabanay mudaharaad salmiya oo aan ugu mudaharaadno wargeyska Hubaal newspaper oo la sii daayay askarigii hubka ku soo weeraray halka aqoonyahan Jaamac Jiir oo maqaal ka qoray madaxweynuhu uu xiran yahay dawladda 4 sanana lagu xukumay oo maanta ku dhaxanuunsanayo jeelka Madheera. waxa ayaan daraa markii aan mudaharaadkii dhameynay soo dhaqaaqnay ayaa waxa wasaaradda beeraha horteeda lagu xiray 4 wariye oo kala ah Saciid Qadar Cabdullaahi madaxa wararka Bulsha TV iyo Cabdi Casiis Bashiir Nuux oo ah Xogreeb newspaper iyo Xasan Maal oo ah Universal TV iyo Cabdisalaan Cabdirashiid oo wariye ka tirsan Bulsha TV. waxaanu ka codsanaynaa dawladda inay si degdeg ah u soo deyso wariyaasha ku soo xirmay kadib markii loo soo ururiyay kiisaskii saxaafadda laga galay hadday tahay kaybilka berigii la weerarka waxaan ku wariyo sharci darrada loo geystay hadday waahantay hadday tahay maxay hadday tahay aadif tahay arrimahaas oo dhan awood waxaan uga shaqayn karweynay siyaasadda arrimaha dibadda iyo loobankii Soomaaliland u gaajirnay wariyaha xiristiisu way dhib yartoo askar baa xira laakiin adduunka caqabad bay kaga tahay Soomaaliland. waxaan aad iyo aad uga xunnahay aniga ku hadlaya telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV magaciisa waxaan halkan ka cambaareynayaa oo si aad uga cambaareynayaa xarigii waxshinimada ahaa ee lagula kacay 4 suxufi ee ka kala socday institutionska madaxa bannaan ee kala gedisan. dhacdadan ayaa ah mid waxashnimo ah oo ay ku caanbaxday xukuumadda Soomaaliland waxayna mar walba caburin iyo jirdil iyo takoorid ku sameeyaan wariyaasha madaxa bannaan ee bulshada u adeega. warbaahinta caalamiga ah ayaa maanta baahinaysa tacadiyadan loo geystay suxufiyiinta reer Soomaaliland waxayna wax laga xumaado ku tilmaameen dhacdadani. wariyahan ku booqanay saldhigga Hargeysa walow aan lana ogolaan wax muuqbaahiya ayaa noo cadeeyay in muddaba 2 jeer ay jirdil saldhigga dhexdiisa ugu geysteen ciidamada Soomaaliland. ciidamada RRU-da Soomaaliland oo ah kuwa ku cusub shaqada ciidan ayaa caadaystay tacadiyada ay kula kacaan saxaafadda iyo muwaadiniinta reer Soomaaliland waana kuwa mar walba si arxan darro ula dhaqma dadka ay qabqabanayaan waxaana maanta la arkayay ciidamadan oo teedsan suuqa isla markaasina ugaadhsanaya wariyaasha waxayna xayireen dhammaanba shaqadii wariyaasha Hargeysa. taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland Mudane Cabdullaahi Fadal Iimaan oo khadka telefoonka kula xidhiidhnay ayaa ka gaabsaday inuu ka jawaabo tacadiyadan ay geysteen ciidamada uu hogaamiyo. xukuumadda Soomaaliland ee uu hogaamiyo madaxweyne Siilaanyo ayaa ah mid ku caanbaxday jirdilka wariyaasha birmageydada ah waana mid ka mid ah taariikhaha mahadhada ah ee looga dhaxli doono sidoo kalena waxa lagu qiyaasaa mid